uu u jeedinayo labada dhinac. bismillaahi raxmaan raxiim. zahra, waxa weeye xaaladda maanta dalku uu marahayo waa la wada ogyahay. meel khatara ayuu marayaa. qarannimadii baa maaragtay qar ka saaran. baarlamaanku waxa weeye saldhigga dowladnimada weeye. markii baarlamaanku uu dhismo ayaa wax kasta dhismayaan. madaxweynaha la dooranayaa, dowladda la dooranaya ama la siinaya kalsoonida, shuruucda. halkaas weeye waxa meesha wax walba ka bilaabanayaan, iyadeena kusoo noqonaya wax isku dhamaanaya. marka saldhigga qarannimo ayaa maanta khatar ku jirta. ilaahay mahadii weeye. annagu xalay waa welwelsaneen odayaashanada, waxaanu lahayn maxaa beri dhici doona sabti ah. ilaahay baa mahadle, waxay waa hakismeen. waxaan la soconaa madaxweyne inuu soo galay oo uu la hadlay muxuu ahaa ra-iisul baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa. haddee waxa weeye wax dhammaaday ma jiro, weli khatartii way taagan tahay. marka waxa weeye mowqafkayga odaynimo waayo aragnimo siyaasadeed ilaa 60kii baan maarata shaqo ku jiray dowladeed. waxa weeye baarlamaanka yaan la burburinin, waa kow. tan xigta waxa weeye yaan maaragtay muxuu ahay inamanin in gacan kaal timaado, ha la isu tanaasulo. labada dhinac ishaysta, labaduba maaragtay muxuu ahaa baarlamaanka ka tirsan yihiin. waxa weeye arrinta ha lagu xaliyo wadahadal iyo wadaxaajo iyo nabad ha lagu xaliyo. taasay danta ku jirtaa. waayahay, bal waxaad iga warantaa, muddo badan ayaa loo soo joogay soomaaliya oo ku meel gaara dowladeed iyo mooshinno laga keeno guddoon baarlamaan ama xubno baarlamaan ama ra-iisul wasaare ama madaxweyne. marka maxaad is leedahay mushkilada noocan ah ee soo noqnoqonayso waa looga bixi karaa? waxa weeye adeer zahra, waxa weeye arrimahan lagu soo celinayo ama maaragtay muxuu ahaa la keenayo, muxuu aha mooshinada la keenayo, waa xasilooni darre keenaysaa. dowladdii iyo dalkii bay ma ku tahay maaragtay khalkhal ku tahay. marka waxa weeye hala siiyo muxuu ahaa baarlamaanka nidaamka dowladeed, hala siiyo muddo, hala siiyo, ha loo kaadiyo muddo, hala doortay muddadoodii ha loo kaadiyo. haddii lagu hayo waxyaala cad oo dembi ah, marka wax kale weeye. laakiin xasiloonida dalka ayay ku jirtaa baarlamaanka oo xasiloon iyo dowladda oo maaragtay la shaqaysa baarlamaanka. saa haddaa u sheegay waxa weeye saldhigga dowladnimo waa baarlamaanka. waa gartay. maxaa laga baran karaa soomaaliya muddooyinkii burburka ay kusoo jirtay dhowr 20 sano oo hadda ku dhawaad 30 sanaaba la dhihi karaa iyo ka badan? maxaa la dhihi karaa waa laga bartay marka dhibaatooyinka la xiriira khilaafyada dowladaha soo kala dhexgala iyo burburada ku yimaada hanaanka dowladeed ee dhisan markaasi? adeer, waxaa laga baran karaa waxa weeye ciddii soo marta dhibaato iyo qaxar soo marta waa inay xusuusataan waxay soo martay, waa inay xusuusataan. haddaad xusuusan waxaad soo martay, haddee garan maysa meesha u socotid. marka waxa weeye dalka burbur baa soo maray, waa looya wixii la soo maray. marka taa inta lagu waana qaato hab dowladeed oo degan oo muxuu aha habu socod muxuu ahaa geedi ah ha lagu wado dalka. wixii aanu soo marray ilaahay dib nooguma celiyo. waa nala yaabahaya. waxaa la oran jiray waxa weeye Soomaaliya muxuu ahaa meel kastaa dagaal ka dhacaa waa dhammaadaa. anigu waxaan xasuustaa mar niman Maraykan ugu yidhaahdeen muxuu ahaa civil warkii Maraykan 4 sano ku dhammaaday. maxay tahay Soomaaliya waxaan jiitabahay. marka waxa weeye muxuu ahaa biseel darri baan u arkaa. ha lagu waana qaato wixii